الحمد لله marka hore waxaan salaamayaa tamaan inta ka soo qayb gashay xafladan oo halkaan fadhido magaca iyo masabka iyo maamuuska halkaan ay ku fadhido ayaan ku salaamayaa dhamaanna waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh salaan dabadeed waxaan kaloo u mahad celinayaa intii ka soo qayb gashay xafladan iyo muxuu ahaa intii mafac iyo maskaxba gelisay iyo muxuu ahaa bahda warfaafinta si xoog la u joogto intaana muxuu ahaa waa u mahad celinaya inta hadii laga gudbo maanta waa 15 May ummadahan caalamka ku nool adduunyada ku nool waxay leeyihiin maalmo ayaga u gaar iyo maalmo ka wada dhaxeeya ayay leeyihiin maalmaha caalamku koonkan dadka ku nool ka dhaxeeyo waa laba baan hadda ka soo qaadanaya way farabadin waxaan ka soo qaadanayaa 1 May oo bishaan 1 ah waa maalinta shaqaalaha adduunka waa halgan dheer baa loo soo galay munaasabadeedan la eega doonaa oo kuma imaan ciyaar sida isileek 8 Maarso ayadana muxuu ahay waa halganka ama maalinta haweenka adduunka caalamka way adduunyada dhan bay ka dhaxaysaa waxaan filayaa iyada wax badan baan ka hadalay 8 Maarso u dambeysana waan ka hadlay inta haddaan ka gudbo maanta waa 15 May waa maalin ummadda Soomaaliyeed qaymo ku leh ayadana u gaar ah oo halgankeedu ku cabirto meel ay joogtaaba maalinkan maanta oo 15 May waxa la asteeyay oo muxuu ahaa lagu dhawaaqay 1943 May 1941 ayaa Ingiriis koonfurtu qabsaday waxa way iyadu lafteedu waa inaan macnaynaa cidii ururkan samaysay waa in la helaa dhalinyaradu badankeedu oo mada yartu waxay u haystaan ururkan Lego ama Israel in Talyaani sameeyay ama Talyaani abuuray ururkan waxaas abuuray oo diyaariyay oo barbaariyay wuxuu ahaa Ingiriis 1941 buu Ingiriis koonfurta qabsaday 6 gobol awal gobolada waqooyi joogay Kenya iyo Suudaan iyo Uganda iyo dalalka la habeen Ingiriis baa joogi jiray Ingiriis maxaa koonfur keenay marka ayada lafteedu waa inaan iftiimina wax ka taataabana Ingiriisku koonfur waxa keenay 6 gobol Talyaani baa u yeertay Talyaani dhulkaan uu haystay Itoobiya haystay Eritrea haystay dagaalkii labaad adduunku markuu qorxay 1940 bishii August Talyaani wuxuu isku dayay Burcay Hargeysa labadii gobol oo Ingiriisku xukumay waqooyi inuu qabsado waana qabsado muddo 7 bilood oo joogay Ingiriis marka wuxuu ka soo galay halkaan uu ka soo galay 1941 buu soo galay koonfur iyo xamar iyo 6 gobol oo Talyaaniga xukumay jiray marka Ingiriis markuu joogay 3 sanadoodba wuxuu diyaariyay ururkan buu diyaariyay 1943 bishii May 13 kilaab ayaa markii hore waxay Soomaaliya Youth Club baa la dhihi jiray Ingiriisku waa danaynay iyada lafteedu ururkaas samayntiisu muddo Ingiriisku laga la xariir waxa gobolada u joogana military bay ahaayeen nin sargaal oo siyaasadda dawladda ama tala meesha joogay ninkaas laga la xaalay sida ayaa kilaabka lagu furay 47 1947 kilaabkii wuxuu isu bedelay xisbi siyaasadeed Somali Youth Club baa la dhihi Somali Youth League baa la dhihi SYL 15 dhalinyaro Soomaaliyeed bay ahaayeen oo dalka u kacday lambar badan oo kale xisbigaas marka 3 sano gudahood 25 xubnood baa qayb ka noqday oo tasarato la siiyay nambarkooda la siiyay oo ku kala baahay goboladan koonfureed waqooyi Soomaali galbeed iyo NFD ba muddo muxuu ahaa gaaban waxisbi aad muxuu ahaa u socday buu xisbiga marka ragii u soo halgamay ama 13 markaan wax ka xusno adeer waxa kamid ahaa dheere xaaji dheere iyo muxuu ahaa xaaji maxamed xuseen muxuu ahaa Cabdiqaadir Saqaawudiin yaasiin xaaji Cismaan
ما أركب ظاهر عثمان ويفرق بدناين كفر بري إيشيا نواب هيسو برياس وصدمي أفرتك وابا كلا سارة بنغالاديش هندي باكستان ولا كلا سارة بنغالاديش هندي تضباطك يدو سبب سبب ولا كلا سارة إن ودريني سومالي مركا إنجليزكو مركو كوبي أفرتك هالكا قبصدي حسب كان سمي لحي أفرتك وسيركي أرماها الدبادة بريقا جوغي محوا إنجليزك دولته ku guuleystay dagaalkii labaad ee adduunka muxuu ahaa 1946 wuxuu hor dhigay wuxuu waxaan soo jeedinaynaa Soomaaliya ama aan danaynaa Soomaaliya hal dal in loo dhiibo lagama hoos qaadan marka Faransiis Afrika aqoon buu lahaa laakiin Ruush iyo Amerikaan Afrika aqoon uma leh lagama hoos qaadan Ingiriis wuxuu culayska soo saaray Muqdisho xamar buu culays soo saaray in laagada la xoojiyo oo si fiican muxuu ah lagadana wuxuu kala hadlay wuxuu yiri war waxaan doonayaa laba qodob baan idinka doonayaa gobonnimada inaan idin gaarsiiyo Soomaaliya dhan ana isu keenayo gobonnimada inaan idin gaarsiiyo Commonwealth-kana aad ku beertaan gobonnimada inaan ugu idin gaarsiin aad dalbataan Soomaaliya ana isu keenay NFP baashi inta kale ana haye baashi muxuu ahaa Djibouti ana doonay jasiiradda yar saqotara la yiraahdo wuxuu waa keenaya oo annaga ba nagu hadda yaman taayso وأرين عاد هو حساسية ده أيو كهن أقوانته ويسكيرات حتى ردوا ويرات تلياني مسامين بدن بوكلها إنجليز فودوا بيبي إيرتريا وحي دونه ينهلا سو أركالي كون سجال بقول سديتني أفرتي على صدر سديتن كون سجال بقول أفرتن سديت دي على صدر وفتجاس لحدي جنوري بيجي مادين وعنو سعودها هن ولا تمارين تلاديه دونه مارين تاسي لحي وعيد أفرتن سديت دي لحدي جنوري ماذا waxa loo yimid Soomaalida oo wax farq badan u dhaxeeyo oo Talyaanigii shaqaystay oo xisbi uu sameeyay oo la yiraahdo Congress ma conference la yiraahdo oo Talyaani doona oo u dacwiyay Soomaaliya in Talyaani lagu soo celiyo 30 sanadood kadibna muxuu ahaa in xurriyadii la siiyo hawshaas markii farqiga meesha la arko waxa la qolaba maalinteeda marka banabaxa sameeyay qoladii way ka baxday 12 January ayay leego samaysay banaanbixida ayadoo damaashaad ku jirto baa qolada Talyaanigu taageersan Talyaani iyo qolo Carab oo meelaha laga keenay Liibi iyo Talyaanigu ka samaysay iyo qolooyin kale ayaa muxuu ahaa xabad ku bilaabeen xaruntii muxuu ahaa in leegada halka dagaal baa ka dhacay dagaalkaas waa dagaalka la magac baxay Soomaaliya ha noolaato maalinta ay baxday waa maalinta Xaawo Cismaan Cali Xawataako ay ku dhimatay dagaalka waxa kale oo lagu diray dagaalka sida taariikhdu in bariso ama ku qoran buugga uu qoray oo the modern history of Somalia oo uu qoray professor Kelira I.M. Lewis oo British English u dhashay uu qoray maalinta waxa ku dhimatay 40 I.M. waxa ku dhimatay 50 iyo muxuu ahaa 3 Talyaani ku dhimatay marka Soomaali laga reebo dhinaca kale قالك وحو عدينا كنتن يكو لكن انا عكله نك لا يراهدو محمد هو صبه وحو عدينا 43 قال انا مالتا دمت oo Talyaani ku dhimatay wafdigii marka wuxuu soo jeediyay maxaa rabtaan leegoy leegadii marka waxay yiraahdeen baqadin badanna way gashay sida anigu kulay aan ku xisaabtamayo dalkaana dhaqaale badan oo Talyaani ku lahaa waxa laga yaabaa in laftooda 13 ilo dusisay waxay yiraahdeen waxaan u baahanahay kuwa afarta dawladood oo waaweyn oo dagaalkii labaad adduunka ku guuleysatay ayagu in gobonnimada na gaarsiiyaan Ingiriis filmeen erigaas qoladii conference oo Talyaanigu taabacsaneen waxay qoraalay u dhibeen guddiga sida isla way yiraahdeen waxaan rabnaa Talyaani in loo soo celiyo oo 30 sanadood dib loo xukumo kadib gobonnimada la siiyo arintaas Ingiriis waxay ku noqotay ama kaag ay afkala qaad hargii inta daboolay UN kana waa waaye markii United Nations ama dawladaha weyn u jeedinay 46 waa laga hoos qaadi way haddana leegadii wuxuu ka rajaynay waa shaqayn weyn Ingiriis marka waaga ku bariyo xamar waa ka sabray arintaas marka waxay keentay leegadii Ingiriis inuu jigijiga uu bixiyo أول بحشيشة بدنا جري أسأل لك أجوبي سلسلة يا فرتنكي جناية أنت
bishii September 23 inuu yiraahdo heshiiska la galayaan ama xarada oo yiraahdo dhulkan waxaan ku wareejiyay idinkaan muxuu Ethiopian ku wareejiyay ama xaran ku wareejiyay jigjiga maalinta muxuu ahaa dagaalkii ka dhacay ama banaanbixi 25 Soomaaliya ku dhintay rag iyo dumar male marka maalinka ayada waa maalin Soomaalidu qadarin kulawa khayma kule waa lixdankii gobonnimadii raggii keenay waa ayaga dad fara badan waa la helay gobonnimadana sideedu raadinteedu iyo haynteedu waxa adag haynteedu gobonnimo marka la doonayo ama ummad la howlgelinayo waxa weeyaan dad number walba aan xirowna mar walba leh laakiin kursiga marka lagu fariisto oo salka la dhigo oo dawladda la qaato maxaa dadku sugayaan waxay sugayaan waxay dadku ka dhaxeeyay in laga garsoro ayay dadku shacabka sugayaan marka wax badan oo dhibaato ah baa yimid gobonnimadii 60kii baa la qaatay 60kii muddo la socday ilaa 69kii waa la kirifleeyay axsaabtu ha badnaato laakiin Soomaalinimada lagama tagin nidaamku axsaabtu uu fara badnaa 86 xisbi baa la furay 86 xisbi waad garan kartaan samacaan Soomaaliyeed oo qabaa'il muxuu ahaa markiisii horena mustacmar haystay muxuu ahaa konton sano Talyaani 12 sano Talyaani hore haystay 10kii Ingiriiska 10kii dambe Talyaaniga damba markay Talyaani 59kii bishii November baa loo soo celiyay Talyaani dib loogu celiyo koonfurta loogu dhiibo waxa soo dhan waxay keeneen talan waxoogaa wadaniyada iyo Soomaalinimadu dadku kamay tagin 9kii sano hore inkastoo nidaamku axsaabtu iyo mushkiladeeda lahayd way axsaabtu qabaa'ilay abuurtay doorashooyinka qaar dad baa ku dhima jiray waxaan ogahay degmooyin badan oo kala duwan oo balad weyn ka mid tahay inuu ku dhintay waxaan ogahay ceeler inuu ku dhintay oo muxuu ahaa ninkii uu yiri wiil isaga uu dhalo kabtan iyo laba xidig wuxuu ma aqaan wiilkaada dhimay baa lagu wiilku ha dhintay kursiga ma helo marka Soomaalidu beriga xoogaa kursigu waxbay waa la weynay waxa dhinteen laakiin haddana Soomaalinimada iyo wadaniyada adeer waa jirtay oo waxa shaqeynay hada waagii dambana waxa yimid qolo ciidan ah yimid oo military oo Maxamed Siyaad Barre Allah u naxariiso oo rakacay timaashid xukunkaas nuxurkiisii wuxuu gacanta u galay dad muxuu ahaa ciidamada ah oo mataqaanaa ayagu ah dadkii Talyaaniga uu qortay oo lagu qabtay dagaalkii Ethiopia Talyaani uu qaaday dadkii loo qortay Talyaani uu qortay fajiistihii muxuu ahaa Benito Mussolini fajiisto ah Hitler maqli jirteen oo ah mataqaanaa la dhigi jiray waa naasigii Jarmalka gacan saar baylaan dagaalkii labada adduunka wada shaqeynay dadkii Talyaaniga loo qoray oo Talyaaniga wuxuu qabsaday Ethiopia 1936 bishii May isagoo kaga soo kabtay magac xumadii ka raacday dagaalkii muxuu ahaa Eritrea dhinaca Eritrea uu ka soo qaaday 1800 muxuu ahaa 1896 uu ka soo qaaday dagaalkii Cadwa la magac baxay oo Eritrea dhinaca Eritrea Ethiopia waa lagu jibay macnaheedu waxa lagu jibay Talyaani waa lagu jibay barigaana waxa dalka xukuumaya hore waxa xukuumaya Melik marka lagu jibinayo Eritrea waaga dambe Ethiopia hadda la qabsanayeen waxa joogay muxuu ahaa Hayle Salaasa joogay Hayle Salaasa 40 sano dalka Ethiopian ku xukumay 44 xukumay marka Talyaaniga wuxuu kaga soo kabtay magaxumadii halka ka raacay Talyaanigu marka waxa weeye sida ayuu marka dibna loogu soo celiyo dhulka looga qabsaday anaga marka aan ku nimaado waan maanta ku keeno dawladda ciidamadeena marka ayagu laftooda waxay noqdeen xukunkii systemyadii Talyaaniga dadku soo jiray kiisigii Talyaaniga 10kii dambe Ingiriiska 10kii dambe Talyaaniga dad system soo jiray oo haddana ku jiray systemkii 9kii sano oo doorashooyinka ciidamadu hareeraha ay wada eegeen xukunka kama marnayn inay xukunka qabsadaan laakiin waxa isweydiin leh madaxweynihii marka waa la dilay yaa sabab u ahaa ma waxaan ku eedeynaa shuuciyada waanta wadaagay marka wadan ku eedeynaa reer bariga markiism ma waxaan ku eedeynaa reer bariga ma waxaan ku eedeynaa yahuud iyo masaarido qudheeda may doonayn Soomaa annaga Ethiopia marna xiriir inuu dhaxmaro lama doonayn marka intantu dawladii militariga ahayd
adeertay waa gabtay muxuu ahaa in hawshii looga baahnay way gabtay way fulan weyday dalka wuxuu gaaray in la isdilo xukunkii wuxuu noqday xukun aaciiliye gacanta wuxuu ku aruuray odaga xamasiyaad iyo labadiisa wiil labada wiil waxa laga dadku inay ila yaabay hadda ka horna maalin baa labadiisa wiil war labada wiil ma ku dhalay labada wiil waa maxamed cali samatar iyo axmed salmaan cabdalle dafla wiil waa labadiisa gacmood baa waana kuwa Soomaali ku laayo xukunkana sida u galay marka mushkulooyinkaas oo dhan muxuu ahaayeen maxamed siyaad caruurtiisu adeer deeriye maxamed siyaad baa lagu qabtay xamar ay ku qabatay UC waa noolyahay waa raadi kartaa ninkii waa raadi kara waa noolyahay laba sanadood ku dhow buu xamar joogay dibadda baa la fiiday adeer adigu qaangaas niyar baa tahay baa lagu dunuubtu aabaha galay uma haysto cid adigu kuma haystaan marka maxaa yimid marka waxa yimid jabhada yimid marka maxamed siyaad meeshii waa laga saaray jabhada yimid jabhaduhu maxay ahaayeen waa jabhada aan lahayn political platform oo qabiil salka ku wadahay maxay dhaxashay waxay inay burburaan adeer rejiimkii hawshiisii markuu gabayna meesha laga saaro laga eriyo muxuu ahaa jabhadiina nooca ay noqdeen shacabkii intuu ku soo dhacay meel cidlo ku soo dhacay shacabka ilaa maanta mushkulad baa taagan oo xalkeeda la isweydiinay oo Soomaalidu haysato 60 kan sano maxaan dhigi karnaa aan xorriyadu sheeganayno aan rabaa inaan soo gabagabeeyo 60 kan sano oo xorriyada aanu haysanay 9 sano waxaan ku xiqnay 86 xisbi كون لا تنسرنا وعن كجر المتقنا دكتاتور بانو كجر كلي تليا حكون إني لبديس لا تليا أي معمولات مركي بربر كان دعينا جبهة يميد وان بلوتك البلد فمله ووضع غيره وحانا كبش حان ترى حان سوماليا حان حد هينا حال الدول سيد سوماليا عقيد استاجيسة كجوك سنسوا ما ضمن ما اللو باين دتكو ضد با كجرو ما أنت محانا جانا لو بربري maxaana loo ku dhiibay nidaamkan la leeyahay waa federaal nidaamkan federaalka kuwa danaynayo yay u shaqeynayaan waxay u shaqeynayaan oo baritaarayaan waxa weeye labadii ku shantii qubaradii Ingiriiska ahayd oo fariisatay muxuu ahaa wadanka Ingiriiska oo yiri war Soomaaliya maxay yeelna aan reero u qaybinaa reero ka dhigo aan niraado federaal baatiin reeraha laga dhigo dadka danaynaya nidaamkan hadda fikradaasay taageerayaan waxa kale ay taageerayaan adeer Soomaaliya dalalkan diriska oo labada inaan u shaqeyno oo aanan muuqan ayaa la rabaa wax kale la doonayo Soomaaliya iyadoo reero kala socoto ay u kala dhuntaan Addis Ababa iyo Nairobi loo kala dhunto waa nasiib darro weli muxuu ahaa waxaan daba taaganahay wixii Soomaaliya eeday waa maxay tahay waa isku tiirinta iyo adeegsiga qabyaaladda war qabyaaladee intay wax geynaysa aan isweydiina ya jaanis u helay way qabyaaladaas waxa jaanis u helay qodobada ciidamada dalkan iyo shacabkan oo hub haysan oo dawladnimo doonaya ayaa laga shaqeeyay inay qori qaataan ay wax dilaan ama isdilaan ama laftiisa qofka laftiisa u bixi qabiil de kaasay wax u tari leh isku tiirin qabiil iyo adeegsigeedu kaasay wax u tari dalkan marka adeer qabyaalada waxba u tari mayso Soomaaliya way ku luntay waxana la rabaa in la xisaabtamo adeer aqoonta iyo ilbaxnimada marka la qiimeeyo maalintii xorriyada la qaadanay maanta ay ka badan tahay haddana maanta ayaa farqiga u dhaxeeya shacabka Soomaaliyeed ayuu maanta kaas ka foolxiyay waana nasiib darro aad nasiib darro waxa weeye war Soomaaliya siyaasadii geysay ee foosha xumeed ee kala geysay ee maanta dunida dacaladeeda ay Soomaaliya ku yaacsantahay gaar ahaan muxuu dalalkan diriska waa kuwa kulli qaxootigan kuna marka la tago dadkan hadda siyaasadda ku agarab raratada ama maalin goostaliya maalin goosto ma taqaanaas kuwan oo jibaalka soo goosto way marka kuwan maalin goosto siyaasadda ku wada uba bilowneen waxay soo ordaan Nairobi arsan soo ordaan markay goortay Nairobi arsado tagaan adeer hudheelada waaweyn ay fuulayaan ama ay ka soo dagayaan maqaayadaha wax ka cunayaan adeer gabdho Soomaaliyeed baa jooga oo kuwa Afrika ugu qiimaha badan oo dawarsanayo tuugsan indha u xiray adeer lacagtay meelahan ka qaadeen ay dadkan ka dhaceen ayay rabaan Nairobi arsada in lagu cuno oo muxuu ahaa Kenyati iyo Ethiopian ayaa si Soomaali kale loo dhibaatay wax loo geynaa ayb soo nasiib darro ma waxa dalka maanta ka taag waxa weeye adeer dhalinyaradu way soo halgameen waxa ay qabteen laakiin aan dhalinyaradu u soo laabto marka
dhalinyaro waa taa waqtigaas 13 iyadaa howlgiis 9 sano dhalinyarada way joogtay laakiin axsaabta nasaqday axsaabta faraha badan ayaa qabiil ka dhigtay oo waxay ku dhaxmeelmeen axsaabtii socotay markaan u soo laabno qoladii ciidanka dhalinyarada waaya waxaan hadda la hadlaya qoladii ciidanka markaan usoo urur bay u sameeyeen ururka waxa joogi jiray Salaad Ismaan Roble Jango la yiraahdo Maxamed Maxamuud waxa xogaaya guud waa maxaa xarako Maxamed waa badan laakiin ururku cid wax weydiinaysa ma jirin waa jireen waa urur ahaan bay u jireen laakiin cid wax weydiinaysa ma jirin leesh dalkaba waxa weeye odaga iyo labadiisa nabada hadda ka hadlay waxa ku gacanta ku soo aroor cid wax weydiinaysa ma jirin burburkan haduu yimid oo burburkan goortii u yimid de maxal shay dhalida maxay noqdeen waxay noqdeen cid kasta oo wax doonayso oo xeeladaysanayso oo farsamaysanayso waxay noqotay dhalinyaradu muxuu ahaa inay ku shaqaysato marxalad kasta lagu jiro leeyahay waxa la marka dhalinyaro idinku waxaan idin leeyahay wax barta hadda maanta waxaad ku howlantiin dhalinyaradu waan og waxa meelahan lagu adeegsan marka laga reebo tahriib iyo talawa iyo taabu waxaad ku howlantiin war waxaas horumar lagu gaari ma waa inaad wax barataan oo hoggaan yeelataan si dalkan waqtiga la joogana idinka iskale mustaqbalka soo socdana idinka iskale arintaas oo dhan waxaad wax ku qabsan kartaan waxa weeye inaad idinku hoggaan yeelataan isku duubataan marka saa idin leeyahay meel aan hoggaan lahayn waxba ka socon maayo dalka halkan waxaan dhigay waa hogaamiye la'aan way hoggaan taagan baa la arkay waxa loo baahay hogaamiye bisil oo qaangaar siyaasadeed iyo mid maamulba ah oo aqoon dheeraad u leh arrimaha mataqaanaa maamulka khibradeeda leh heybad hogaamineed leh dhaqan gobeed leh mataqaanaa nin loo soo joogsan mujtamac uu soo joogsanaya waa in la helaa hadii la waayo waa nasiib darro halkaana waa idin sheegaya ninka kursiga ku fariisto oo kursi ku fariisto kursiga wuxuu u yimaadaa asoo wax badan laga yaqaan wada dheerna u soo maray midna goolad buu kaga soo baxay oo ka wadada dheer u soo maray shakhsiyadiisa dhaqankiisa wax badan baa laga yaqaan laakiin waxa kursiga markuu soo fariisto miisaan buu fuulaya laba qodob baan ugu muhiimsan koow dadka uu magacaabay waa cinkeen ninkan mas'uulka dadka uu magacaabay waa nuucee waa dad nuucee ah ma garan muxuu ahaa ma nin dad aqoon laba shaqada loo magacaabay aqoon u leeyahay kartideeda ma leeyahay khibradeeda ma leeyahay waa nin cinkeen qodobka labaad oo laga eegay waxa weeye ninka mas'uulka war ninkaan dad baa u yimaado la hadle jin lama hadla bani aadam baa la hadle nooca dadka u dhageyso waa cinkeen waa kuwe nooca dadka bulshada dadka u dhageyso ma dad bulshada sumcad ku laha oo bulshada u soo joogsataa mase ilaa xafiiskan cid walba ku iimaanaysa waxyaabo fara badan ayaa muxuu ahaa ayaa ninka mas'uulka laga doonay marka dhalinyaro waxa laga rabaa maanta maalintii 15 May maanta aan u dabaaldegin dhalinyarada marka war idinku midnimadiina muuji aqoonna ku xisaabtama hoggaanna hala yeesho waayo nin kasta oo wax doonayo waxa uu doonayo wuxuu sii maraa waa dhalinyaro u kacaysa marka waxa loo baahan marka adeer dalkii waa kana oo waa burburkaana waxa u sabab qof waliba wuxuu doonayaa inuu qabiil jaran ka dhigto ku furo halkaana waa ku celinaya waa idin sheegaya Soomaaliya qabiilkaas marka laga yimaado oo ka sii foolxin ma taqaan waxa weeye caalamku wuxuu leeyahay dabaqado kala reer galbeedku warshadley waa shaqaalaha joogo waa hantiilayaal baa joogo xakunku intooda badan tartanka waxa u gala mas'uuliyadda u sareyso dadka hantiilayaalka capitalism shuuciyadana dadka shaqaalaha tartanka u gala war annaga Soomaaliya iyo Afrika iyo Carabahan iyo marka la isku soo qaado adeer waxa jiro waxa la sameeynaya ma taqaanaa isbahaysi qabaa'il ku dhisan oo dhulka hoostiisa ka way kanay Soomaaliya eedow arintaasna dhalinyaro ka digtoonaade Soomaaliya ha noolato Soomaaliya ha israacdo dhibaatada Allah inaga saaro cadawgeena ha jabo